الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بإذن الله وتوفيقه إن شاء الله تعالى عاو وحمد الله بينا تفسير القرآن الكريم من سورة الفاتحة أيان كبالله بينا إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحن ويديسنينا إنه النور ما يستره ومركي صدحاده بحمد الله مساجد كينا انتو لسنا عن تفسير كوكب اللونه إلهي حمده إن شاء الله تعالى وحن كبالله بدونانا سورة الفاتحة هدي الله يدمو وصنا ووضينا إلى إلهي سبحانه وتعالى ويديسنينا النور ما يستره إن القرآن كرمينه rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa loo diray jamiici thaqalayn yacnii labada la cusleeyey waa jin iyo insiba waa loo diray wuxuuna ahaa muballiq soo gaadhsiiya risaalada rabbi subxaanahu wa tacaala risaalada rabbi oo baatil aan horteeda iyo dhinaceeda midna ka imaanin allah subxaanahu wa tacaala marka rasuulka waxaa loo soo dhiibay kitaab mubiin ah oo cad oo kala faslinaya shakiga iyo yaqiinta kaasoo weliba cajis geliyey dadkii fasaaxada iyo carabiga aadka u yaqiinay cajis geliyey ooy waxba ka keeni waayeen lana yidhi keena bal 10 aayadood oo qur-aanka oo kale way keeni waayeen la yidhi xitaa ugu dambeyntii bal hal aayad keena oo keeni waaye kitaabkaasi wuxuu xallinayaa mushkilaadka iyo dhibaatada dadka bini aadamka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala kownkan uu keenay buu xallinayaa haddii lagu dhaqmo wuxuu alla ku sheegay axkaam iyo wixii loo baahnaay oo dhan xalaashii iyo xaaraamtii wacdigii iyo qisaskii waxba lagama tegin tarkiib iyo tarhiib allah subxaanahu wa tacaala kitaabka wuxuu kula khitaabay dadkiisa awliyadiisa ah oo ay ugu horeeyaan dadka qur-aanka yaqaano oo rabbi uu siiyey oo aqrinaya habeen iyo maalin dadka xifdisan oo uusan dhumaynin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigooda uu ku ilaaliyey waa kuwa khulafada ka ah oo khaliifka ka ah ambiyadii ilaahay iyo rusushii alla soo dirsaday iyagu ka dambeeyey waxay caddaynayaan oy ummadda u caddeeyeen macnihiisa iyo wixii ku qarsoonaabay ummadda u caddeeyeen alla subxaanahu wa tacaala culimo ayuu haddana inoo sameeyey oo ah rusushii naa'ibka ah warahatul ambiyaa dhaxalkoodii iyagu joogo oo haya kuwaasoo macaanida qur-aanka soo dejinaya oo tansiil usoo dejinaya dadka inay fahmaan usoo dejinaya kitaabka qur-aanka marka waxaa la yidhahdaa waa asal sunnaduna waxay noqonaysaa bayaan iyo caddayn culimada hadalkooduna waa istinbaad iyo kutubtan waaweyn ee la qoray ad aragtay waa laga soo qaatay oo meesha wixii ku qarsoonaabay bannaanka iyaguna usoo saareen waajibka marka waxaa ku ah qof kasta qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu xifdigiisa siiyey uu baray inuu aqriyo xaqa tilaawati sida dhab inuu aqriyo tadabbur iyo macnihiisana in la tadabburiyo xaqaa'iqdiisa ayib waajibka cala alculamaa waxaa waajib ku ah inay kashfi ku sameeyaan ay soo saaraan macaanida tafsiirka oy dadka usoo bannaanka ugu soo bixiyaan jazaaka allah khayr ayib allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu inaga dhigo dadka ahlu qur-aanka ah oo ilaalinaya qur-aanka iyo macaanidiisa allah subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo ayib kitaabka allah subxaanahu wa tacaala sheekh alislaam ibnu taymiya raximahullah baa wuxuu yidhi tafsiir atabari imaamu tabari tafsiirkiisu waxa weeyaan afdalu tafaasiir waa tafaasiirta ila muxarrar kitaabka markaad baranayso kitaabkeed ugu noqonaysaa
marka imaamu tabari kitaabkiisu afdalu tafaasiir baa lagu sheegay oo sheekh islaam uu ku tilmaamay waana kan ugu saxiixsan. tafsiirka alxaafid ibnu kathiir raximahullah oo talaamiidda iyo ardayda sheekh alislaam ibnu taymiya raximahullahu ahaana, ibnu kathiir wuxuu u istaagay inuu soo ikhtisaariyo, soo ururiyo kitaabkii tafsiirkii imaamu tabari isagoo fawaa'id badanna ku soo daraya. ayib, manhajkii sheekh aan bedelaynin imaamu tabari alasmaa wasifaat iyo siday ahaayeenna u sheegaya. haddaba kitaabkan hadda gacanta aan ku hayo oo runtii kitaab aada iyo aada u fiican ah, 4 mujallo ah, ee sheekh alalbani baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkii alxaafid ibnu kathiir oo tafaasiirta inta loogaya tafaasiirta ugu fiican ah buu isaguna sheekh alalbani camal ku sameeyey, uu ka shaqeeyey. camalkaasna wuxuu keenay axaadiista ku jirta alxaafid ibnu kathiir sheegay tafsiirka ibnu kathiir oo dhan inuu sheego darajadooda. wixii ilaan mi-aad iyo boqolaal ama kumanyaal xadiid buu soo arooriyey ibnu kathiir oo ku dhex jira sharaxa. wuxuu sameeyey marka sheekh alalbani wax alla wixii bukhaari iyo muslim ku soo arooray inuu muslim iyo bukhaari u tiiriyo, uu sheego. wixii kalena inuu caddeeyo darajadooda, ilaan labada un baa la isku waafaqsan yahay inay saxiix yihiin. wixii kutubta kale ku soo arooray الsunan alarbac, 4 kale, kitaabkii tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo maaragtay nisai iyo musnad axmed iyo dhammaan wixii kale kitaabta kale inuu xukumkooda caddeeyo oo uu sheego. axaadiis badan oo ku jirina uu usoo nisbeeyo, kadibna mufradaadna uu maaragtay iyagana caddeeyo. allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa an yajcala camalana hada camalan saalixan, suu sheekhaasaba ku duceeyey, innagana camalkeenna inuu ka dhigo mid saalixa inuu ka dhigo. ayib, haddaba kitaabkan oo maanta insha allahu tacaala aan bilaabayno, taariikhduna ay ku beegan tahay taqriiban 17 bisha shawaal oo caawa insha allahu tacaala 1439, kuna beegan 1 bisha insha allahu tacaala 7 julaay caawa 2018 sanadkan, yaan ilaahi subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu noo dhammaystiro, uu noo kaamil yeelo. qaabka aan u aqrin doonno haddii alla idmo waa inaan habeenkiiba aqrino 2 maqro haddii alla idmo, 2 habeen oo habeenkiiba uu noqonayo 2 maqro insha allahu tacaala. xisbina sidaas aan weygii ku qaadanay insha allahu tacaala. kitaabka alleh iyo gudbintiisa, inta adduunka aad aragteena luqad ku jirta maanta wadamada adduunka inta badan dad muslimiina baa jooga oo way ku kala tagsan yihiin. dadka muslimiintana kitaabka ilaahay way daraaseeyaan. luqadaha adduunka ka jira oo dhan baa inta badan lagu aqriyaa oo lagu tarjumay in badan oo ka midana. ikhtilaafka marka luqaadka waa aaya oo calaamaadka rabbi ka mida subxaanahu wa tacaala. qofka gudbinaya oo kitaabkan tafsiirinaya, haddayna waan tarjamaynaa, soomaali baan rabnaa inaan ku tarjumno oon macaanidii ku soo dejinno. shuruud baa loo shardiyaa baa la yidhaahdaa. shuruuddaasna waxaa ka mid a macrifatu luga alcarabiya, qofku inuu luqadda carabiga garanaayo. markaad luqad tarjumi waa inaad horta luqadda aad tarjumaysa taqaan. 2 luqadda kaleu ku tarjumina waa inuu yaqaano qofku. bimacrifati tarjama, qaabka wax loo gudbiyana waa inuu garanayo, oo haddaan ruuxu si wax usoo gudbiya garanayn waxba kuma soo gaari karo. qur-aanka si guud ahaaneed 2 loo qaybiyaa. qur-aanka maki iyo madani baa loo qaybiyaa. maxaa maki la yidhaahdaa? qur-aanka makigi waa maxay? waa wixii soo degay intaan rasuulku hijroonin sala allahu calayhi waali wasalam, walow nazala bigayri maka. hadduu rabo meelaan maka ahayn baa kusoo degee. rasuulka hijradiisii wixii ka horreeyey, xitaa ghazawaadka markuu aadiyo markuu safar jiray iyo dhulkaa wixii kusoo dega waa maki baa la yidhaha qur-aanka.
ولي مدينة لما كان. طيب قرآنك مكي وحو بدن يوكا الله انت بدن عقيدة توحيدك رصوشة رسائشي لو سو ديبي قيامة بعثك يا نشورك إلا الصواب بحين دونه أمورها سو انت بدن قرآنك مكي كالله قرآنك كلا مدني اللي يلاهدو ووحي سو دقي بعد الهجرة رسولكم مركو هجرودي صلى الله عليه وآله وسلم انت كدن بيسوي سو دقي بالليل هذا مدني ولو يسونا مكبه دربا كسو دقي ورسولكم مركو صلى الله عليه وحج كسو هذا وكلام عمره دوي ما القرآن كسو دقي مربع دين مدينة هذا وحي كدن بمدني بالليل هذا سيدا الراجحة قرآن كمدني يسونا وحكشك يا أحكامت انت بدن أحكامت سورة البقرة أيان هركي دونا وأحكامتها كهذليس منافقين تأيو كهذلا أحكامت أهل الكتاب اليهود والنصارى انت بدن كهذلا هذا التفسير كمرك الله فسره أيو سيدا وفي عنه تفسير كالله فسره وعوفي عن تفسير القرآن بالقرآن إن قرآن كقرآن لو فسره أو آيات وحي أي إجمالي سي أو ميل وحير لوغا شيغي ميل بلو فافاهينيا سورة كلا لو فافاهي بل قصة كقرآن كتيرا بدن سورة البقرة بقى نكو غاري دون أرك قصة مركي ميل لو شيغ قصة مارة قصوينكي آدم إيو إبليس إيو ملائكة إيو هوشي دحمرتي هلكا سورة كلا وحدو تجي آد لو فافاهي قصة نبي الله موسى ميل مركا الوالد ميل كالي بسط كتاي قوات مركا قرآن كالو فسر أوفي عن تفسير الله هذا تفسير القرآن بالقرآن أريد اللبات وحوية صور على تفسير القرآن بالسنة إن قرآن كالو فسره سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو هذا الجيران بدت يدن وتصومالية ووح سنة اللي يلاذو أن أقولين وحكيت سنة وحلو لجد أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم وحديث مو باهن بينات كتاب الله يكفينا كتابك الله نوفر كتاب الله لا يستغني عن السنة سنة هي كتابك ومأخذ هذه لغا سو قادشي مستركا اسكو سيبي وحكو واجبين هذا تصال ير زكاة الفطر بينه مالمي هي هوري رمضان هذا انتو لو كهدلين زكاة الفطر عندنا حديث كسو أروري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من شعير ساعا من بر ساعا من فلان إلى آخره طيب فرض رسول الله بقى واجبيي آيات القرآن كم سؤالون زكاة الفطر فرض رسول الله بقى واجبيي وحي نبي الله ومحمد واجبيي وحي لمدي وحي ألا واجبي نينكي هذا رسولك واكدغي ninbaa intuu sariirtiisa saa isaga seexdo iyo oran doonaa buu kitaabkan ugu filan oo kaliya marka lagama qaadi karo tafsiirka waa in quraanka iyo sunnadu isla socdaan sidaa ninkii sidaa wax ka duwan ku sheego oo ku dhado sun ee tafsiirka kaliya aan ugu filan naga daaya ahadiis naga daaya وقف دونسن أما ربنا إنه كتاب إلهي فهم كيسي كوكرمري سيدو فهميسا طيب مركب وامد درجة اللبات وتفسير السنة بالقرآن إن القرآن كلو فسره سنة هي أحاديث وامد اللبات درجة الصدحات وتفسير القرآن بقول الصحابة إن الصحابة هذا القول أصحاب رسول الله لو فسروا ويجا فسر يجا جوج حلق ولذلك وعلى هذا فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وفرس سير يو فهمي هذا أنتم يمادي هذا أنا سيو فهمي سان هين بنيين كيد يقولون سيو فهمي وطوالي وطا وعلينا هي نداء كجور سيو فهمي باصح يا كاخر بنا خير القرون قرن ثم الذين يرونه ثم الذين يبتكوا فضل الله قري كوا سابقين تيجوا ما أورجرت السكة في عم بنفهم سيدي أيو فهمين يو وانكو قصبنا هنا وقالا طيب ما هو حوي ودرجة الصدحات إن القرآن كلو فسروا أقواش الصحابة سيدي أفهمين هذه اللي ويا صدح ضاب
وإن قرآن كلو فسره بأقوال التابعين تابعين تي أو قرن جيل بعد يكيس التحاضة تابع التابعين وإن كوا يجنا لو فسره طيب مجاهد أعمش يكوا صورة يعني وين قول قديما قال إنه تابعيه تصالح مجاهد وكلا الحلية آيات كاستوري بلو في رسالة آية ما من آية في كتاب الله ما جرت آيات كتاب إلهي كجرت إلا صدح جيربان ابن عباس وبندقي قرأت عليه صدح جير ومروا البان مركو عن كد الأقرياء عن معنى هذا ويديني حالا وضع ألف لام ميم مثلا بولي هي مركو يستاوي لي تفسير كذا الشيء صدح جيربان قرآن كسلا وعرضي وبندقي طيب منين كاسا وضدك القرآن كسو الدقيقة وابن عباس ترجمان القرآن ليه ورسولك أدعي اللهم علمه القرآن وعلمه تأويله إله القرآن كبره وفسر كيسا بر ليه وحديث سيكون صحيح البخاري ودعاء رسولك كل عضي مياه فهمي مسألة ربينا هذا التلاد هذا كفهم فيها ومسألك عليه وأقواش الصحابة هي أقوال التابعين هي التابعين سلاس إن لو فسروا طيب إن تابع هذه الأركواية مركة قاربون وحالون نقول الرجوع إلى كتب اللغة العربية إن لو الله كتب اللغة العربية لغة العربية إيو أشعارتي قبيضة عربية رسمية فهذا ابن عباس مركي لو يديو آية من كتاب الله قبل بدل دقيقة عرفت وهي قبل واللغة الرسمية هيدو القرآن كنا اللغة العربية بكسوعة مركا اللغة دي عربيات بلغة فسر مثل كتبتا غرائب القرآن ككادش القرآن كي وحيابيسة غريب كا كتبتا غرائب مفردات القرآن كادش مفردات القرآن كتبها يجد اللوسمي ما بنانا إن تفسير القرآن كلو فسره بالرأي المجرد رأي مجرد أي لو فسر إنه هالكاس كسو فريستو ويلا وحا سالغا وضع ساسو يجيه سلاسة أمالين أما يسوي فسرته الرأي المجرد إلا وفسر القرآن كما بنان طيب توضيح مركي لا فسر يا قرآن كقفك يقان وإن لا القصص الإسرائيلية المنصوبة توراة إنجيل قصص إسرائيلي اللي لا قرآن كبيرة وتربض قصص إسرائيلي صدح قيبوضهم بوقيب سمان بمعنى هو وحي أبيه يوري كتبتي يوري لقسو وريه ساسا رير بني إسرائيل باسدا هانجري وفلان ورك النوع عاسا صدح بوقيب سمان وح كتاب كأنه سجى الدين كتاب كأنه قرآن كي سجى الرسول وكهض لي وحلا سجى وسجينا وقادنا وأديدي وويل وحاس وح كتير ماله يدنا والديدي وح لقى عمصي وحي لقى عمصي حدث بني إسرائيل ولا حرج وح لقى عمصي الله يعلمه أقل قاضان يجوز استشهادها ولا يستدل بين هذا قالوا في سواء كلا الله يجوز استشهادها يعني وحي عن الدين وتشيء كرتا لكن دليل كدين مس أورد مس التوراة يسلا يساسا كتيلة أما رير بني إسرائيل قصة كسو أرورتبا ساسا وساسا والمسألة لقادنا مدهيس طيب أنت اسكتب حاول سورة الفاتحة ينقادنا إن شاء الله تعالى وأعظم صورة في القرآن طبعا سورة وين طيب سورة الفاتحة horta ma maki baa mise waa madani iyada nafteeda suuratu lfaatixa kitaabta qur-aankeeda haysaan muxuu qorayaa makiya oo madaniya waxaa la yidhaahdaa cala alqowli araajix khilaaf baa ku jire waa makiya sida xooga badan waa maki aqwaasha qaar waxay yidhahdeen waa madani maka ma aha madiina ahayd qolyaha qaar waxay qaarkeedna maku ku soo degay qaybna madiina ku soo degtay oo sootii lagu tukan jiray oo mayadoo la joogo xagga
mar labaad bay soo degtay leeyihin oo qur-aanka qaar baa jira la yidhaahdaa yacni wuu soo degay tikraar marar kala duwan buu soo degay. ayib almuhim suuratu lfaatixa waa la yidhaahdaa waa faatixatu lkitaab, iyadaa kitaabka lagu furfurtaa ugu sarreysa. kitaabka qur-aanka markii aad bilaabayso suurat lfaatixaad ka bilowda. ayib tuftaxu lqiraa'atu fi salawaat, salaada markaan hadda tukanaynana faatixadaan ku furfuranaa, marka suurat lfaatixa saasaa loo yihi faatixa. waxaa la yidhaahdaa lkitaab cinda aljumhuur, culimada inta badan waxay u yaqaanaan lkitaab, kitaabka hooyadii. anas iyo xasan اlbasri iyo ibnu siriin iyo keyrkood baa tasmiyadaana laga soo xigtay. ayib lqur'aanna waa la yidhaahdaa oo xadiis saxiixa ku soo arooray, xadiiskii abu hurayra qaala qaala rasuulu اllahi sal ه alay slam alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin lqur'an wa lkitaab wاsabcu اlmathani wاlqur'aan alcadiim. waana xadiis saxiixa oo saxiix lbukhaari ku sugan. faatixadu waxaa weeye lqur'aan baa la yidhahdaa, lkitaab baa la yidhahdaa, asabcu lmathani waa toddobadii soo noqnoqonay. soo noqnoqodka waxaa la yidhi ragcad kasta waad ku soo celisaa 17 jeer baad maalintii akhridaa, 7 sunno intaan la gaadhin. salaadaha waajibkaa 17 ragcadood intaba waxaa lagu akhriyaa faatixada asabcu waa soo noqnoqotaa marka. ayib waxaa la yidhaahdaa alxamdu suurat alxamdu, alxamdu dadka caadigaa suurat alxamdu bay yidhaahdaan. asalaa xitaa dadka qaar baa u yaqaana oo xadiidkii rasuulka xadiis lqudsi qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii nisfayn. qasamtu salaata u fiirso xadiiskaa soo cabiray marka asalaata waxaa looga jeedaa qasamtu xadiisulqudsi allah baa wuxuu uhi salaaddii waxaan u qeybiyaa labo, qaybna addoonkaa leh qaybna anigaa leh. walicabdii maa sa'al ihdina siraata almustaqiim, inta ka dambaysa qofka ku ducaysanaya, inta horena waa tamjiid iyo sharfinoo ilaahay lagu ammaanayo. marka maxaa laga cabiray qasamtu salaata, salaaddii baan qaybiyey. alfaatixa lama oran, taana waa magac baa la yidhi oo waa la yidhaahdaa. magacyo kaleoo iyagu aan sugnayn way jiraan oo xadiistoodu ay tahay daciif. ayib ibnu cabaas wuxuu yihi waa maki. ibnu cabaas iyo qataada iyo abulcaaliya dadkaasi waa dadka tafsiirka looga dambeeyo bay ka mid yihiin. abulcaali iyo qataadi iyo ibnu cabaas iyo mujaahid iyo waa la yidhi madaniyana abaa hurayre iyo mujaahid oo taa ardaygii ibnu cabaasa wuu qoladaas ku raacay cadaa ibnu yasaar iyo zuhri iyo keyrkood. dhowr jeerna way soo kala degtay bay leeyihiin oo way dhacday marar sidaasoo kale ay soo kala degtay. ayib waxaan rabaa si kooban marka inaan tafsiirkeeda u sheego, anigoo raba inaan laba mulaaxadana ka dambeysiiyo in sha allahu tacaala. bismi illaahi araxmaan araxiim, horta waxaa la yidhahdaa marka la fasiraya bismi illaah, magacii ilaahay yaan abda-u kitaabka ku bilaabi, waa sidaa. allihii arraxmaani naxariista guud gaal iyo islaam buu u naxariisanayay. allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed mu'miniinta unu naxariisanay. wa kaana bilmu'miniina raxiima fi suurati alaxzaab. marka naxariistu oo raxmadda ihi mu'miniinta un bay gooni ku tahay, laakiin arraxmaan naxariista guud haddee adduunkan waa lagu wada raaxaysanaya, gaal iyo islaam ba adduunka way ku wada raaxaystaan. ayib yaan abda-u ku bilaabi oo bismi illaahi daa ba'da lagu tacallujiyo, ficilkaa loo soo qadaro. ayib iftataxa biha saxaaba ayaa waxay ku furfurteen kitaabka alleh, waxayna isku waafaqeen inay tahay calaa annahaa bacdu aayat min suurati namal. waa la isku waafaqsan yahay wainahu bismi illaahi araxmaan raxiim fi suurati namal inay qeyb aayad ka mid a ay tahay. waxay laakiin isku khilaafeen ma aayad gooni abaa markan hadda suuradaha lagu furfuranoo suurad kasta aan ku bilaabayno, mise waa ma aha aayad gooni ah.
ayib khilaaf baa ka dhacay sida raajixana faatixadu bismku waa aayad wey walbasmalatu aayatun minha wala xadiid sheekh alalbanina uu saxiix ka dhigay inay tahay bismku aayad inay tahay lidalika baa lagu tiriyaa oo aayadaha ayay ka mid tahay ayib fadaa'il tiro badan ayaa ku soo aroortay oo maaragtay ku sugan laakiin ma raba axaadiista tirada badan inaan u gudubno alraxmaan araxiim labadaa magac oo bismi alraxmaan iyo alraxiimi waa ismaani mushtaqaani min alraxmati calaa wajhi lmubaalaga baa la idhaha waa laba magac asmaada ilaahay ka mid a raxma baa laga soo qaatay waana lagu xeel dheeraaday calaa wajhi lmubaalaga ee aad iyo aad baa maaragtay loogu xeel dheeraaday ayib alxamdu mahad lilaahi eebbaweynay u sugnaatay mahadoo dhan lilaahi allay u sugnaatay rabbi baa iska leh allihii rabbi alcaalamiina uunka oo dhanna rabbigiisa ah masiwa allah baa caalam la yidhahda alla waxa uunka joogo oo dhan allihii rabbigiisa ah kaasaa xamdi oo dhan iskale ayib maaliki yowmi ddiin maaliki yowmi ddiini allihii kownkan tasarufkiisa iska lahaa maalik waa mutasarif iska lahaa yowmi ddiini maalinta abaalmarka yowm ljazaa wa yowm lqiyaama maaliki yowmi ddiin allihii maalinta jazaha iyo abaalmarka iska lahaayoo maalinta qiyaamada isagu iska lahaa ayib alraxmaan raxiim horey baynu usoo fasirna nacam iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka allow adiga oo keli ah baan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka allow adiga oo keli ah baanu nastaciinu kaalmo ku weydiisanaynaa ayib waxaa la yidhaahdaa haddii mafcuulku uu saasoo kale usoo hormaro oo ereygii ficilka gadaal uu maro takhsiis bay tusisaa iyaak takhsiis gooni iyaaka adoo keli ah marka af soomaaligiiba xitaa keli baan ku niri cid kale ma leh hawshaan cid kaleoo lala wadaajin kara rabbi ma jirto cibaadada isagaa iskale kaalmana isagaa ale subxaana unbaa la weydiistaa adoo keliya baan nacbudu ku caabudayna wa iyaaka adigoo keliya baan nastaciinu kaalmana kaa dalbayna ayib ihdina asiraata almustaqiim ihdinaa allowna hanuuni asiraata jidka allow nagu hanuuni almustaqiima ee toosan ihdinaa allow nagu hanuuni asiraata jidkii almustaqiima ee toosnaa allow nagu hanuuni waa intaa xadiidkii xadiisulqudsigii allah uu yihi fa nisfuhaa lii wa nisfuhaa licabdii walicabdii maa sa'al faatixada qeyb alla wuxuu hi anaa iska leh waa intaa ihdinaa ka horeysa wa nisfuhaa licabdi qeybna addoonkaa leh waa inta ihdinaa ka bilaabata walicabdii maa sa'al addoonkay wixii weydiista waa helayaa insha allah ihdina asiraata almustaqim ducadaa fiican waa helayaa ayib ihdinaa allow naga hanuuni asiraata jidkii almustaqiima ee toosta jidkaasi waa kee waa siraata aladiina wey waa kuwii jidkoodii kuwa la sheegi baa jira siraata aladiina kuwii jidkooda waa kuwee ancamta calayhim waa kuwaad u nimcaysay oo maxaa loogu nimceeyey addiin alakhlaaq alislaam alcilm hawshaasa loogu nimceeyey ayib kuwa loo nimceeyey waman yutic illaha wاrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wاsidiiqiina wاshuhadaai wاsaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa dadkaa wey dadka laga hadlaya ancamta calayhim dadkaad u nimcaysay jidkoodii allahayowna sii
ayib kuwaas loo nimceeyey oo gayri almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday hayrkooda aan ahayn, kuwii loo cadhooday aan ahayn, waladaaliin kuwii dhumayna aan ahayn. oo kuwa loo cadhooday waa kuwe alyahuud. maxaa loogu cadhooday yahuud? waxaa loogu cadhooday kitaabka ilaahay bay iyagoo garan bay qariyaan. kuwii joogay oo rasuulka la joogay baba gacanta saaray. cabdullahi ibnu salaam saxaabigii la odhan jiray markuu soo islaamay nin caalima buu ah oo kitaabkii towreed yaqaana. marka qisaa dhacday isagoo jooga. markii hore hataa u weydiy cabdullahi ibnu salaam ka warrama buu yihi. wuxuu yihi yaa rasuul allah weydiin nimankan beentoodaad ogaan doontaaye yahuude, bal waxaad tidhahdaa cabdullahi ibnu salaam ka warrama. markay ku yidhahdaan waa kanoo waa kanoo waa kan wuu islaamay dheh, haddana wax kale dhihi doonaa. markaasaa wuxuu yihi bal cabdullahi ibnu salaam ka warrama. markaa waa ninka noogu fiican, kii u fiicnaabaa dhalay, wuxuu ka dhashay kan reer hebel, waa fulaan, waa caalim, waa ninkii nagu jiray. soomaalidu wiil bele ka dhacday dhaha maan marayn. marka nin bele ka dhacday wey. ayib wuxuu yihi ka warrama hadduu islaamay. markaasay yidhahdeen waa sharo ninka noogu shar badan oo ugu dhib badan oo ugu qaab daran oo ugu qoys xun oo kan. ayib wuxuu yidhi marka laba qofoo yahuud ah, nin iyo naag yahuuda baa kala zinaystay. markaasuu yihi ii kaale ii imaada. zinada kitaabkiina towraad muxuu ka qabaa? markaasuu cabdullahi ibnu salaam buu weydiye. wuxuu yihi cabdullahi ibnu salaam wuxuu ka qabaa rajmi, in la dilo, sidaasuu ka qabaa. iyagiiba u yeedhay, war muxuu ka qabaa buu yidhi. markaasuu kitaabku wuxuu qorayaa in intii wejigun waxoogaa dhuxul oo madmadooa laga marmariyo magaalada lagu soo warwareejiyo, waxoogaa lasoo warwareejiyo, carruurta la tuso oo la ceebeeyo. hawa kuwaa kuwii la yidhahdo waxoogaa 2 jeera lasoo geliyo. haye kitaabka bal keena buu rasuulku sal alla alay slam. way keeneen. aqriya buu. wuu aqriyey. nin aqrina ayaa jiray. markuu aqriyey ayaa waxaa la yidhi markuu aayatu rajmi maraya buu gacanta saaray. meesha aayadda ku tiilay buu gacanta saaray. fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha. wixii ka horreeyeyna wuu aqriyay, inta ka dambaysana wuu aqriyay. rasuulkaa wuxuu yihi yaa rasuul allahi, wuxuu ku yihi cabdullahi ibnu salaam gacanta ka qaad ku dhah halkan. markaasuu gacanta ka qaad, aayatu rajmi oo ku taala oo ku qoran. marka nimanku niman waxaa weeye iyagoo wax og oo kitaabka ilaahay yaqaan oo alla ku soo dejiyey bay taxriifiyeen oo bedeleen oo inkireen oo ku dhaqmi waayeen. marka waa loo cadhooday. sidaasa almaqduubi calayhim ku noqdeen. cadho ilaahay bay qabaan. annasaara kristiyaanka iyaga maxaa la yidhi waladaaliina waa kuwo dhunsan. oo maxaa laga wadaa? yacbuduuna allaha bigayri cilmi. waxaa yidhi ilaahay baan caabudaynaa iyagoon cilmiba lahayn, jahliba iyo dalaalay ku caabudayaan. soomacay galeen iyo meele intay isku soo xidheen bay yidhahdeen waan caabudaynaa. kaniisadda marka ku jiraa aragay saa isu lulayaan ee saas maanta o dhan isu dhibka haysta. waa kii cumar bin khadaab uu arkay radia allahu canhu wa ardaa. qisadii cajabta badnayd. cumar bin khadaab baa wuxuu arkay nin kaniisad ku jira oo saa isu ruxaya. marka aada intuu u fiiriyey ayuu ooyey. ilin baa ka timi. asxaabu rasuulillahi baa canaanto waxaa yihi waa maxay ninkan kaniisadda ku jira miyaa hadda wixiisani kula qurux badan yahay? wuxuu yihi maya nimayo waxaan soo xusuustay buu ihi qowl allahi subxaana hal ataaka xadiidu lgaashiya wujuuhu yowmaidin khaashica caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya tusqaa min caynin aaniya. ayadaha tafsiirkeeda ma taqaanaa? waxaan soo xusuustay qiyaamada waxaa la arki doonaa dad dulaysan oo dulli ka muuqda maalinta, laakiin caamilatu naasiba adduunka shaqo qaban jiray, hawl bay soo hayeen. maanta o dhan saasay isu ruuxi jireen iyagoo aaminsan inay cibaadooyin ay qabanayaan. bal kuwan soorooyinka la yidhahda ee guurkii iyo ilmo iskaga tagay nolol adduun oo dhan faraha ka qaadaan. bal kan baadariga ee meesha ku dhex jira ee carruurta yararkaa ummadda u dabamaraya arag
intuu is yidhi waxbaan iska daynayaa xaas yacni waa mashaakil weya ayib marka cumar bin alkhadaab wuxuu yihi niman yahow waxa aan la ooyayo ma aha cibaadadiisa lam arad calaa cibaadati uma jilcine waxaan la ooyayaa ninkan dhib ka haysta iyo haddana inuu geli doono naaran xamiya taasaa igu oohinaysa ayib wala daalin alkhulaasa laba kelima ayaan ku gebagabayn doonaa insha allah. kelimada hore aayaddan ibnu kathiir wuxuu soo gudbiyey suurat lfaatixa waxaa lagu sharaxay suurat lfaatixa taqriiban 47 safxo ayuu ku sharaxay ibnu kathiir, marka ma wada marin karayno. marka mulakhaskan dhowrka sadar ah wuxuu ku ururiyey ishtamalat hadihi suurat lkariim, suuraddani waxay kulansatay buui 7 aayadood. 7 aayadood oo ka hadlaya allah xamdigiisa. ilaahay marka la leeyahay kitaabta marka la fasirayo ilaah waxaa sax ah allah in la yidhaahdo, ilaah ma aha. waayo ilaahyo badan baa jira kuwa xaq lagu caabudo kuwa baatil, allah oo xaq lagu caabudo kuwa baatil lagu caabudo, ilaah baa loo wada yaqaana. laakiin kelimada waa in la iska saxo, allah waa inaad tidhaahdo markaad alla sheegayso insha allahu tacaala. ayib waa 7 aayadood oo ka hadlaya xamdiga eebe iyo allah in la tamjiido, la sharfo, in la ammaano. asmaadiisii alxusnaa bay sheegayaan, alraxmaan alraxiim, asmaa ullahi alxusna oo sifaadkiisii sara ay ku yaalaan. waxay ka hadleen 7 aayadood maalinta qiyaama ayaa laga hadlay. waxaa laga hadlay addoommaha in la tawjiihiyo, la tilmaamo inay allah subxaana wa tacaala wax weydiistaan oo u tadarucaan isaga, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, oo cid kale aynan ku warwareegin, ikhlaas ay ka dhigaan, towxiidka aluluhiya warububiya inay saxaan. ayib waxyaabaha allah subxaana wa tacaala la wadaajintiisa in la diido, adigu baan ku caabudaynaa, adiga un baana kaalmo ku weydiisanaynaa, iyo hidaaya iyo hanuun in alla la weydiisto subxaana wa tacaala, inuu alla kugu hanuuniyo asiraat almustaqiim oo ah jidka toosan. allana subxaana wa tacaala uu nagu sugo, ilaahay hanagu sugo, allah hanagu sugo jidka kaasoo keeni doona jidka qofkii alla ku sugo toosan, ihdina siraat almustaqiim. jawaaz asiraat jidkii xisiga ahaayo yowma alqiyaama, jidka siraad ee la gudbi doono insha allahu tacaala in la gudbo uu alla kuu suurogeliyo, adigoo insha allahu tacaala jannadiisii usii gudbi doona haddii alla lana socdo alambiyaa wasaalixiin wasidiiqiin washuhadaa, dadka alla doortay subxaana wa tacaala adiga oo la socdo. ayib intaa kadib waxaan rabaa macno yar oo kale oo marar horena aan khudbada uga hadalay inaan isagana isku baraarujinno, kusii adkeeyo, ku gebagabeeyo, kaasoo ah khushuucda ee faatixada marka la aqriyayo. horta waxaa la yidhahdaa salaada qofka raba inuu ku khushuuco waa faa-iido runtii aada u muhiimsan. qofka raba inuu salaad ku khushuuco waxaa ugu fiican macaanida waxa la aqrinaya inaad ka fikirto. hadda tusaale markaan maqribka tukanaynay suuratulbaqara aayadaheeda horaa baan aqrinay, qisadii munaafiqiinta ayaan aqrinay. yacni 3 qolo oo kownkan dadka alla ku abuuraya, kownkan oo dhan 3 qola lagu abuuray, waa mu'miniin iyo kaafiriin iyo munaafiqiin, u dhexeeya labada. dadka wax ka baxsan maa jira. 3daa guruuba hadda aayadihii suuratulbaqara ugu horreeyeen aqrinay bay wada ahaayeen. muminiinta aayadaha hore 5 aayadood ee hore taqriiban baa looga hadlay, gaaladana 2 aayadood dhexdaa looga hadlay, munaafiqiinna waa intaan aqrinaya in weli loogu sii daro inaa dhammaynin. yani maxaan ka wadaa, wixii la aqriyay ka fikir, waxa la aqrinaya dhegayso. ma rabtaa inaad ku tadaburto khushuucdaada, imaamka wuxuu aqrin dhegayso. imaamkuma tujina adaa keligaa tukan, faatixada aad aqrinayso macanideeda ku fikir, ma taqaanaa tafsiirkeeda. bal wax yar marka aan fiirino, markaad qofku aqrinayo markuu yidhaahdo
الحمد لله رب العالمين تذكر عظمة الله الذي يحمد إليه كل الخلائق waxaad ka fikirtaa weynanka allaha caalamkan oo dhan uunka ku nool isaga uu ku xamdinayo طيب الرحمن الرحيم تذكر الله كون حريصنايا بلو فيرسو وأنت على معصيتي أديكو عاصنايا ميقا دنبي بالله نمادنا ميقا عصيانية وحالتي ما دا إذا بطر دنبي بات كل حجرتا وفيرسو الله دنا وكون حريصنايا سبحانه وتعالى ولي دنبي بات قاعد كل حجرتا مالك يوم الدين مرك الله أقرنا يوم تذكر عظمة الملك الذي يتصرف في هذا الكون كله وحده الله كون كان أردن يسوي كليا كتصرفه عظمة ذا كورم تلاك وما قدر الله حق قدره وينك الرب أمطي بنو آدم كمسين ما قدرين طيب إياك نعبد وإياك نستعين مركو إمامكو أقري أما أذوق بعض أقرين يسو بل وحد كفكرتا طيب الله الذي مركز دباطة أي كوغو دعضو مشكلة في جوف الليل هبين بركي أي كوغو تماتو كلي يبا تشكو إليه وشاقتا سنصحض الله بعضو شاقتا وعبا كاقا ما قبان كارو قفك كله رتاه مركز الله الله يا رب الله يو سدا الله يو إن حريص الله يو إعاف يا كلام عرنا إسقون بعد عريسة كليو اهدنا الصراط المستقيم تذكر الشيء الوحيد أو الله لو ويتيست سبحانه وتعالى مركز كجرت الله ويتيست وامحي والصراط هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وجدك ضدك إلهي قولي سبحانه وتعالى ضدك الله قولي وكوا عن شقنية وأنبياء إلهي يا الصالحين تي يا الشهداء دي يا ضدك وضضو دي أدنى الله ويديس جدك سنة وحان وغير المغضوب عليهم ولا الضالين وكوا لو عروضي iyo kuwa dhumay labada midna jidkoodii ma waake waa jidkii kuwii aan soo sheegnayo an'ama Allahu alayhim oo min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin dadka fiican wadadooda taa alla weydiiso subhanahu wa ta'ala taasina waa faa'iido ama hal aqriyo faatixada oo kaliya ama qur'aan kala lagu daree qofku marka uu salaada tukan waxa ugu weyn uu khushuuc uu ku heli karo insha Allah waa tadabbur al-ayat allati yuqra ayadaha la aqrinayo inuu ku tadabburo wax ugu weyn insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala inuu wada hadeeyo Allah subhanahu wa ta'ala qalbigeena haynoo geliyo thabat fi diinillahi iyo diinta fahamkeedana Allah inuu arsaaqo insha Allah ta'ala sahru sheegnay كتابكان وحنا غرين دوناه بين والبو سبتي هي أحدا بعد المغرب إن شاء الله توقيتك هي ساعة قبل كان واشنطن إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين